السلام عليكم ولكن حسن بن السلام يا waxaan joogaa Jomo Kenyatta International Airport Nairobi waxaan soo aadaa Muqdisho diyaaradda waxaan raacin doonaa Ocean Airline waxay kici doontaa saacad hadda kadib ay kici doontaa marka waan la socodsiin doonaa insha Allah khayr badan oo jidana assalaamu calaykum السلام عليكم هذه ساعة وحاويان تضبط يا واحد دمان diyaaradda gudaheeda hadda soo galnay Ocean Airline Jomo Kenyatta ka baxaynaa Muqdisho ku soconaa 2 saac waa diyaaradda gudaheeda marka insha Allah la socda bye bye qofkaas waa wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya oo diyaaradda noo saaran safarkana waxaa ka mamnuuca cabida sigaarka isticmaalka aalada elektrooniga ama ku hadalka telefoonka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون sidii doon muuqataba diyaaradda ayaa hadda degaysa waxaan nabad ku soo gaarnay Muqdisho Garowe Galkacyo iyo Kismaayo rakaabka kala socda magaalada kala Garowe Galkacyo iyo Kismaayo fadlan waxaan idinka codsanaa kursiga ku sii nagaajana ma baaqa ku sii hataan waadku maasadii doorashada international airlines nawadina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddaan kasoo degnay aadan cadi international airport gudaha galayna hadda taaba hadda salaamaya أوسعي دروكا على قد يا شيكاكو عمل شيكاكو ما شاء الله وخير يا جي اف كي عمل على قد يا جون اف كي عمل والله اني روبا وجرى ما تبغى روبا ودايا هذه محلها اني كلها haddaan soo degnay waxay soo dhaweeyay aweys xaaji ma sha Allah haddaan magaalada galayna insha Allah soo dhawaada la socda waa dhowr daqiiqo hore soo degnay marka ma sha Allah hadda waxaan nimid hotelkii aan Muqdisho ka degeynay sidii muuqata hoteelada Muqdisho waa caalami waxaa lagu galayaa kaarkii ayaa lagu furanayaa dad ayaa waxay aaminsan Muqdisho hoteeladeeda inay yihiin kuwa aad u hooseeya marka ma sha Allah runtii hoteelada Muqdisho waxay ka mid yihiin hoteelada caalamiga ah hoteelo aad u liito waa jiraan hoteelo qatar oo ma sha Allah waa jiraan marka hoteelkan wuxuu ka mid yahay hoteelada ugu wanaagsan magaalada okay salaad aadaanka labaad hadda la adimaya san maqashaan hadda suxuranay بعد مشاهدة هذه دورنا إن شاء الله قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينتهم قال الذين يريدون الحياة maalmihii ugu horeeyayba waxaa Ilaahay ii suura galiyay in aan booqasho ku tago xarunta Ifia xarunta Ifia waa public library ama library dadweynaha ay leeyihiin halkaasi waxaa imaan kara ardayda iyo qof kasta u baahan in uu maskaxda ku dejiyo kuna akhristo buugaagta noocyadeeda kala duwan maktabadda Ifia runtii waxaa aasaasay dhalinyaro dadaalaya rabana inay horumariyaan wadankooda laakiin u baahan garab istaag iyo caawimaad nooc kasta ah maktabadda Ifia waxyaabaha ay u baahan tahay aniga indhahayga aan ku arko waxaa ka mid ah buugaag kala duwan si ardayga markuu yimaado halkaasi uu uga heli karo buug kasta oo uu u baahan yahay sidoo kale xarunta Ifia maktabadda meesha ay ku taalo waa qol yar oo cariiri ah waxaanay u baahan tahay xarun midda hadda ay ku shaqeyso ka weyn sidoo kale waxa ay u baahan tahay kumbuyuutaraad
ku leh internet software loogu talagalay maktabadana ku shaqaynaya si qofka markuu yimaado oo ugu qoro buuggu u baahan yahay magaciisa ka bacdina shelfiska uu yaalo oo uga soo baxsado sababtoo ah hadda waxaad arkaysaa ardaydu inay waqti ku dhuminayaan buuggii raadintiisii iyo shelfiskii uu ku jiray inay aad u raadiyaan marka waxyaabahaas oo dhan waa la gaari doonaa laakiin dhalinyarada hadda aas-aastay xarunta ifiya ama maktabadda ifiya runtii waxay mudan yihiin boogaadin iyo in loo mahadceliyo maadaama ay hirgeliyeen maktabad caalami ah oo leh ama la mid ah maktabadaha caalamka ka jira oo kale ah buugaag kala duwan oo nooc kasta ah ayaa halkaas yaalla waxaan ka soo baxnay maktabadda ifiya oo ku taala muqdisho gaar ahaan number 4 ageeda waa maktabadda kaliya muqdisho ku taalo arday badan aan ku soo aragnay oo runtii dadaalayso waxa aqsanayso laakiin maktabaddu waxay u baahan tahay caawinaad fara badan sida buugaagta iyo xagga teknolojiga kombuyuuteraadka in laga caawiyo waxaan isku dayi doonaa aniga asxaabteyda inaan wax karaankeena aan ka caawino runtii dhalinyarada joogta aad u dadaalayaan waxaan rajaynayaa in dadaalkaas ay sii wadi doonaan gaarigan hadda aad u jeedaan waxaa iska leh ubaxa caasimadda waa dhalinyaro ku bahoobay in ay qurxiyaan magaalada muqdisho waa caasimadda dalka soomaaliya wadooyinka caanka ah magaaladana waxa ay ku abuuraan ubax meel kasta oo aad muqdisho ka martid waxaad arkaysaa ubax iyo in lagu abuuray iyagaana ka shaqeeyay maasha allah This is big. مكوية قوي هذا لما فيها الصبر كم هيك تكسل تسوي هو قالها بيحصل لك يعني يسأل لك كلم حكوا سي كلم حكوا سي عرب يا عادي ما ما شاء الله Oh, everyone. حالتك ورمل أبو جزين سليمان أبو جزين نكل يراهدو نكل الياسونا واكنا قرحلوغا مقالة أي سلام غير سياتل مياه رسياتل غير سياتل أي سلام إن شاء الله see you soon see you soon إن شاء الله of course ما شاء الله هالكاس نوحا يا الملف سافية أبو قضني أنا وقدنا أنا يلا جوجنا أنا الجيل لسه يتسنى عبارك بعدي هودي ملعانين جيلة متى ماشي قرح كنا عواه سيبر برسنت ورسوم جديد نسمع بسرعة اوكي طابعاتنا كده نوع تسمى قبل طابعان مقدش سياشن برتوميا 190 باي 2 90 by 2 waxaan ku daabacaysan 110 ya $110 media dollar عادي ما وحكة رواية والله عادي ما شاء الله
ديار يا ابو هي والله ما شاء الله خطر بصوت. السلام عليكم أدنى سلامنا waxaa hadda noo soo socda dadkii aan sadaqada siin lahayn sadaqadka siin lahayn oo mar noo imaan doona gudoomiyaha hay-adda African Development Xasan Sunni ayaa ka waramay sababaha xilligan ku soo beegay in lacag la siiyo qaar ka mid ah dadkii eheladooda ay ku geeriyoodeen qaraxii Zoobe iyadoo wali lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxa uu kaloo halkaasi ka sheegay dadka lacagaha soo dhiibay. waxaan ilaahay uga mahadcelinayaa marka hore inuu nawaafijiyay in halkan isugu imaano maalin Ramadaan iyadoo aan waxaan ka shaqeynaa ay tahay khair iyo inaan dadka walaalaheen ah ee qaraxii Zoobe dhibka ka soo gaaray aan caawino qayb kamid ah iyadoo dad badan oo aan rabnay inaan gaarno ay qaarkood ka tageen Muqdisho ay ka tageen gobolada kale ee aadeen qaarna aan rajeynayno inay soo gaari waayeen laakiin telefoonada aan rajeynayna waxa ugu dirnay insha Allah laakiin walaalaha halkan hadda fadhiya halkan jooga waxaan u mareynayaa tiradooda inay 10 gaarayso walaalayaal saa u jeedaan anaga waxaan dhalinyaro iska shaqeysata organization-kan waxaan u sameeynaa waxa waaye wadanka Mareykanka joognaa marka aragtid inaad sadaqa meel gaarsiisid sharci inaad ku gaarsiisid weeyaan shakhsiyan wax ma gaarsiin kartid laakiin waxaan u jeedaan dad walaalihiin aan ka soo qaadnay oo aan ugu ku niri maadaama wadanka aan tagayno dadkii qaraxii Zoobe wax ku gaareen aan gaarsiino xoogaa afur iyo tabarucad aan gaarsiino saas ayaan maaragtay waxaas idinku soo gaarsiinay waxaan rajeynaynaa insha Allah taala in intaas ay wax idin tarto wixii kale to Ilaahay uu soo gaarsiino waa idin soo gaarsiin doonaa. waa maalinkii labaad oo aan tiro qoysas ah aan gaarsiinayno xogaa sadaqaad aan ugu talagalnay inay Ramadaanka ku afuraan ciidana ay ku farxaan qoysaska maanta aan wax gaarsiinayno waxa weeyaan ilaa 4 qoys sababtaan 4 qoys u xulanayna waxa weeye maadaama 4 xaas oo walaalahan meesha fadhiyo ay caruurta uga dhinteen afartaba waxay saarnaayeen hal bajaaj ay wada saarnaayeen waxayna ka imaadeen Xamarweyne iyagoo Malay Xamarweyne ka soo gatay waxay ku sii socdeen meesha la yiraahdo Madiina halkaas ayuuna qaraxii musiibada ah ku asiibay waxaana uga dhinteen caruurtii walaal ka mid ah caruurta uu haysto wuxuu ku sheegay 7 mid wuxuu haystaa 6 midna 4 midna wuxuu haystaa 3 marka waa garan kartaan musiibada ku dhacday familkan maadaama hooyooyinkii ay halkaasi ku leedeen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha u naxariisto ayaan leenahay waxaana ka codsanaynaa walaalaha meel kasta ay joogaan hadday rabaan in qoysaskan ay wax gaarsiiyaan inay nala soo xiriiraan si aan telefoonadooda iyo qaabka loola xiriiro aan ugu sheegno insha Allah ta'ala bal ii war Muqdisho iga war xaaladeeda nabadgelyada السلام عليكم مقدشو حسن وفي عنتا يادنا وفي عنهاي دمان dadku iyo maxaa la yiraahdaa dawladda iyo dadku baad wanaagsan yihiin bisha Ramadaan si wanaagsan baan u qaabilnay amniga magaalada waa satal inta badan magaalada waxyaabaha loo iska dhacaan hadana waa meel aad amnigeeda loo sugay Ramadaanadii hore marka la fiirsho Ramadaanta way ka duwan tahay oo way ka amni badan tahay dhigi karaa adigu sidaad aragtay si caadi ah dadku cibaadaadka iyo khayrka iyo taraawiixda iyo habeenka uga qayb galayaan marka ma sheegi karo nimcada hadda haysano marka loo aan heli doono alxamdulillah ma sha Allah marka habeenka waqti daba la socdaa dadku waa ganacsadaan waa adeegtaan ciida loo diyaar garoobayaa Soomaa ha habeenkii xalay 8 habeenimo 2 AM baan xalay xaafadeeda tagay anagu intaasna wax kale kuma soo jeedin waxaan ku soo jeeday maxaa la yiraahdaa sugidda suxuurta iyo asxaabta inaan waqti la qaato maadaama maalinka cibaadada binigaas ku siinay waxaan jeclaanahay inaan halkaan aan dhahno soo dhawow hal daqiiqan aan siino si uu magaciisa inoogu sheego hadduu Ilaahay Mr. Xasan Bashiir welcome on stage السلام عليكم هذا وقت بدن المسلمين هذا كي هذا بدن هاي حسن بشير على هذا حسن سنة معدين هاي
أدبا إذن السلام إن شاء الله كارك كاسي بجنا أصبرنا إن شاء الله. Thank you so much. جمعة مساعد نوصل عنا أنا إلياس. أي إلياس ما أنت فرادي. فرادي والله جمعة. معلنا هذا قرحان ما شاء الله. فرادي هذا رمضان. مش الجون وكو ما أنت. ما شاء الله. هذا مساعد نوصل عنا حصل عنا مساجد كم حالة مقعيس. صحابة مسجد نوصل عنا إن شاء الله. مساجد الموين قالوا تجينا سبايسي كم كل غيره. ما تبغى أنت سنة إن شاء الله. goobta hadda aan booqanayno waxaa la yiraahdaa Pizza House qarax ayaa sanad ka hor ka dhacay ciidda Ramadaan inta lagu afurayo iyo qarax ka dhacay renovation ayaa lagu sameeyay dib u dhis haddana dib loo furayaa daawasho wanaagsan waxaan ka samayn taqaanaa Elias jimco wanaagsan hadday shaqada socotaa la camirayo meesha maasha allah دي بقى الله فريد وانا مخلوق حسوني اللي كان محاولة سياسة نيجي بدأ ما شاء الله مريها بودا بدل يا halkani waa maqaayadda caanka Muqdisho ka ah ee loo yaqaan Pizza House waana goobtii qaraxa oo ka dhacay sanad ka hor iyadoo Ramadaan ay tahay dad badan oo Soomaaliyeed muslimiin ahna ay afurayaan lagu laayay halka hadda aan taaganahay laakiin sidii muuqata dib u haween qurxoon ayaa lagu sameeyay walaalaha maamulkana waxay ii sheegeen in la furi doono dhawaan عالم كودا ومال عانو عدل نسي عيدا 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 ما انت عيد ونكسن عيدا عالم كودا ومال عانو عدل نسي عيدا 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 ما انت عيد ونكسن عيدا عزي وشرفي فرحتك عيدا عملك صوبا مسجدك عامرة عزي وشرفي فرحتك عيدا عملك صوبا مسجدك عامرة آخر يوم في مقدشو عبد الرحمن الجوهري ما شاء الله فرحتك عيدا ما شاء الله سني وحالنا إلهك نود جيو إن شاء الله الله حاول نود قوة إن شاء الله نصل ما شاء الله مردو وصلى الله ونيا جوهري فرق كم معنا ويس نواكنا سلام يا شيخ شيخ ايوه سلام يا شيخ السني شيخ كو حس دونتا شهر اوصل سلامه السني ادنا كو حس دونا ان شاء الله شيخ سوقينا ان شاء الله نكس بوك فين absolutely hadda waxaan joogaa garoonkaadan cadde waan ka baxay inuu Nairobi u socdo sidii horteena ka muuqata yar ayaa boorsada ii wada qaybta via bid ma geene hada via bid ma ka baxay والله ما هو لكن عادي واحد مال أنا نيروبي لو صعدة نيجي أنا خيرك عاونة بورصي وضع أصحابتي السلام سلامتي ما شاء الله مقدش كسر هذا اللي ما أدري مقدش كسر هذا ودك كيلو دب وصل نقطة صح هو عدو إله كان على النقطة ما شاء الله ما شاء الله